السلام الله عليكم أصحابتي إذا يا ريحي بي يا ريحي أرمي يا ريحي بي يا ريحي بي ما يا وأراهدا أقول لي ياب كبدن لبدي مالبود يلا صور دافي ماشي كتمد وحا أي تحي يسبب وحياله فربدن بان ما أنت يدل يستاجد دون نادي أنا قلت شوفتها سبسكرايب تدوي دي جرين لايك تدوي وعطسي كومنت تيجي فكر كأنا نقوله ده ساكسور وهذا برنامج كيف أفعل قاعد هاي labadii maalmood la soo dhaafay waxa haysatay baraha bulshada waliba qaybta Soomaalida kelmad ay ku soo balameen reer Commentland ha u badnaadaan kelmadaas oo ahayd yaa riixay bi qof walba gurigiisa ugu soo gashay qofkii wax soo dhigi jiray qofkii post soo qori jiray iyo qofkii video soo duubi jirayba guriyahoodii qof walba ugu soo gashay oo commentiska ayaa aad isku wadaagay yaa riixay bi saxawliib لا waxay ka walaxtaa yaa riixay bi dadka caanka ah ee baraha bulshada isticmaala qaabo kala duwan ay uga falceliyeen fiidiyoga gabagabadiisa ayaan idin kula wadaagi doonaa se marka hore waxaan dul istaagayaa oraahda tani maxay ahayd xagee ka soo farcantay maxaa loola jeedaa iyo warbixino gaaban horta challenge-gan maaha challenge Soomaali kaliya ku kooban inkasta oo nin dhalinyaro ah uu challenge-gan keenay oo uu bulshada Soomaaliyeed soo gaarsiiyay laakiin waxaan dhihi karnaa waa challenge adduunka ka socday ay Soomaalidana soo gaaray oo markooda ay kaalin ka qaateen waa laga yaabaa hadda kadib challenge Soomaalida bas inuu bilowdo laakiin kan waa all over the world maxaa yeelay yaa riixay bi waa kelmad fanaan gaanaysa asalkiisu gaanaysa ay hadeerna ku nool United States uu hees ahaan u soo saaray oo waxa ay dhawaanadan bahaysatay baraha bulshada ee caalamka oo dhan reer Commentlandka Soomaaliya idinka taqaanaan reer Commentlandka weyn ee adduunka oo dhan ah ayaa kelmadaas isticmaalayay bal muuqaaladii iyo waxyaalihii laga duubay hal mar aan isla wadaagno muuqaal koowaad in la wadaagay waxay tahay fanaanka naftirkiisa oo ka hadlaya P waxa ay tahay Your partner main bitch is that P. definitely not P Never Steve. No sir. That ain't P. That ain't we push a P. That ain't P. You see a lady at the door, bro. Hold the door for the lady, bro. sida aad maqli kartaan ninkan ayaa oraahda B keenay wax ugu horeeyay uu ku keenana waxay ahaayeen hees uu qaaday heestaas ayuu ku soo saaray oraahda B ama who pushing P dabcan marka Soomaalidu meesha koobaad horta ay ka soo raaceen waa halkaas ninka dhalinyarada ah ee suuqa soo galiyay waa intuu si doonaa balse marka hore bal muuqaalkan isla fiirino Push P. In the meantime, between time. I'm push P. Push a P down this motherfucker, man. Why you gotta keep taking on that P? They push a P. Push a P. sida u jeedaan waa halkaas baashtan ka soo farcantay wiil leena ayaa Soomaalida soo dhaxdhigay oo arrinkiina ay u gadmatay oo armi yeeshay isweydiinaysa su'aashaas adiguna aad rabtid cid riixday P inaad ogaatid isku day inaad videogan daawato waxa riixay P cidii riixday ma aha jawaabtaasi mid aad anaga naga helayso muhiimadu waxa weeyaan inaan TikTok anagu aan qabsano hadii aan nahay yaa riixay P hadii ay rabaan dadku inay ogaadaan waxay ogaan karaan 48 ka saacadood marka ay dhamaato haddaba waxaan isweydiinaysaa yaa riixay P jawaabteeda maxay noqonaysaa jawaabteeda si fudud ayaa waxaad uga heli kartaa ninkan dhalinyarada ah oo nala wadaagaya waxaad tiraahdaa waxa riixay o haddaad u baahan tahay waxa laga wado yaa riixay b ama who pushed b waxa ninkan aad arkay sawirka mujada hoosteeda saaran ee katiinadii saddex geesoodkii ishay kaligeeda ay wata mujada ninkan ayaa horta hees ku qaaday markaan baaray kadib magaciisa waxa la yiraahdaa Gana Robert waa raabiyahan asalkiisa gaara ka soo jeeda laakiin Mareykan ku nool magac kale uu leeyahay laakiin asalkiisa 93 u dhashay taariikhdiisa hadda kale muhiim ah ninkan horta hees ku qaaday asiga markii Mareykanka soo galiyay TikTok-kan waxa idin soo galiyay wiil Mareykanka degan oo bartaan isagana barnaamijka dhacdooyinka iyo waxyaabaha dhacdooyinka ka hadla aad u soo gudbiyay wiilkaas horta soo galiyay laakiin jawaabtan ku sheegaya waxa dhacda orof ayaa riixay jawaabta markii yaa riixay B hadda rabtana wiilka naftirkiisa ninkan fanaanka naftirkiisa ayaa ka hadlay gadaal muuqaalkan gadaal kaaga soo dhigaya dhageyso hadda Englishka faham weysana dhib ma lahan laakiin jawaabta hadda hadii ka dhigan tahay biido hadii gabar magacay tahay yaa riixay B orfa riixay arniyo bad ama gashin Soomaali kullay kama hor dhaceyno sidii ninka dhalinyarada barnaamijkan keenay oo noo sheegay
48 saacadood kadib ayaan jawaabta soo gudbin doonaa ayuu dhahay. arrinkan oo ku faahfaahin doonaa laas hordhic hadee arrinkan waa haynaa. waa tahay haddaba social media kale ee kuma sii mashquuleyno caalamka, waxaan ku mashquuleynaa hadeer bal dadkeena caanka ahaa ama dhalinyarada caanka ah ee social media isticmaalo si ay uga falceliyeen. ninka la yiraahdo Shiino Culey isagu waa barnaamij kale soo riixday, wuxuu siiriyay kursigan 24 saac ku fadhidid oo niyahow dadka ay kugu karahsadeen baabiida laga wadaayo shirkadda soo saartay baabii la yiraahdaayo filinka kursiga dhaga hadal buu maleeyay soo kursiga dhigi Shiino Culey asoo halkaas horta arrin kala aaday oo kursigiisii uu soo riixday. waayahay dhalinyaro kale oo caan ah ba ayagana ka falceliyay, bal aan isla daawano. biyaariixay war biyaariix wax laga wada maksiisiin macnaha biyaariix wax laga wada maksiisiin waxa laga wadaa qof walba oo magaciisa bi ka bilaawdo ha macnaha wax ceebal iskabulo meel kale iskabulo kala magan alla maya halkaas aan la aadin sug عليكيو سوق يا رسول الله يا حبيب الله سوق واي هاي بلا ان كغد من نصرافت دون aan fiirino. yaa riixay army waxa waaye yaa riixay waxa amalina inay xalal ku ekeed xal live walbo comment walbo video walbo yaa riixay lay ak buuxdo comment-yaasha dhan. yaa riixay army waaye ciidan la soo dirsada waaye waqtiga oo idin soo diray ninkii ka dambeeyay barnaamijkan uu dhamaaday. reer commenti guul bay gaareen haday social media saa u qalqalin karaan wax badan aniga reer commenti waa idin watay aadan idin kugu soo dhaweynaa inaa barnaamijkan aad kala kicisaan awoodiinana aad tustaan dadka caanka ah oo ay soo wada qayliyaan, laakiin se kaliya micnaha saxda ah ee ereygan laga wado haduu macnaha hagaagsan yahay waa full challenge idin fulay, laas ereyga haduu qaabta rag gadaal ka noqdo markaas un baa xogaha dhiiqayr baa lagu halageli karaa aslana. yaa riixay waxaa 40 saacadood ee ugu dambeeyay haystay commentiyada Soomaalida gaar ahaan applicationada Facebook iyo TikTok. commenti ka bilaabmaya kelmadda yaa riixay, laakiin dad badan oo kuwa soo qoraya kamid ah ma garanayaan waxa la riixayo, cidda riixaysa iyo halka loo riixayo. adigu daawade marnaba ma qortay commentiyada kullay dad fara badan ayaa qoray yaa riixay bi oo hadeer halkan ma taqaan asxaab aan ku nahay oo saraakiisha kamid ah commentiska hadeer aan soo dhigana waa lagu soo qori doonaa. marka waxaan jecelahay inaan idin ka dabageeyay oraahda yaa riixay bi waxay ka soo farcantay fanaankaas asalkiisu Gaaneeski yahay, hees ayuuna ku soo saaray Soomaalida kaliya ma aha caalamka oo dhan ayuuna challenge-gan ka socdaa, cid walbana way ka falcelinaysaa. saxawliib walaalo waxay ka walaxtaa yaa riixay bi hadda ugu horeysa waxay taa walaalo su'aashan ku diigi jawaabu macaan yaa riixay bi yaa riixay dadkana nagu yaa siyo mid saxaw yaa riixay bi saxaw munir yaa riixay bi أنا مركز سان أفيري مارك سان أقيمي يا ريحة بي تبر أور لها كنت waxaan keenay saxaw anu ciyaarna yaa riixay aniga ma keenin meel lagu riixo ma joogin qaab loo riixo ma ogin ليس القبنا أو الريحة ma ogin مع السلامة أمر riixay bi هيك الله inuu yaa riixay bi falcelin qurux badan bay ka sameeyeen. dabcan oo ku faraxsanahay Soomaalidu markii arrin saas oo kale soo cusboonaado in la isla wada qaato qaab qurux badan inaba aan caadi ahayn looga falceliyo. dabcan asxaabtu waa badnaayeen. yaa riixay bi ma yaa riixay ti marka maxaa iga fiftiin wixii riixay horta qoomkan xagaa laga soo daayay meel kasta yaa riixay ku haya kaal adinku madameer dhaan raacday baa tihiin qof baa idin dhahay waxa soo qora oo iska soo qoraysiin oo dhaga fududina. waa tahay intaas ayaan dabcan waxaan u maleynayaa inaan idinka jaahil bixiyay. yaa riixay bi waa oraah caalamka dhan haysata, fanaan asalkiisu Gaanees yahay, United States ku nool ayaana heesaan u soo saaray, cadaan madow carab cajab dadka oo dhan ayaana isweydaarsanaya. Soomaalidina la yiraahdo United States ku nool baa isagana soo dhex dhigay, weyn u gadmatay army waa halkaas ka yeeshay weyna socodsiiyeen. haddii aad ku wareersanayd marka sidaas inaad kaga jaahil baxday oo kugu filan tahay ayaan filayaa. waa tahay barnaamijkii intaas ku soo gabagabeynaya. haddii aan cusub tahay subscribe taad waa dhiirigelin, like taad waa codsi, commentigana fikirkaaga noo wadaagsaa intaan kulmi doono barnaamij kala mid ah wasiirka magaalada Soomaaliya. ciao ciao.